safiirka dowladda Turkiga oo fadhiya dalka Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland halka oo kulan ay kula yeesheen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani isla markaana ay kala hadlayeen xaaladda markabka ku xiran magaalada Boosaaso. Markabka oo dabayaaqadii bishii inuu weerartay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay gacanta ku dhigeen kadib markii laga shakiyay ayaa in muddo ah ku xirnaa magaalada Boosaaso, waxaana wararku ay sheegayeen in madaxda Puntland ay baarayeen markabka iyo halka uu ku jeedo. Inkastoo wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk Soomaaliya qoraal ay soo saartay ay ku sheegtay in markabka uu siday saanad military isla markaana uu ku sii jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, xarunta ciidamada Turkiga lagu tababaro ee Soomaaliya. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in safiirka iyo saraakiishii la socotay ay wada hadal iyo wada xaajood dheer kadib guul laga gaaray markabkii gacanta ay ku hayeen maamulka Puntland. Wararka ayaa tilmaamaya in madaxda Puntland ay ku qanceen qoraallo iyo cadeymo ay soo gudbiyeen safiirka iyo saraakiishii safarka ku weelisay, waxaana ay sheegayaan in wada hadal iyo wada xaajood kadib la isla gartay in markabka iyo saanadii hubka ahayd ee saarneyd oo dhammaystiran lagu wareejiyo saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga si halka uu ugu sii jahaysto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Markabka ayaa siday hub, waxaana wararku ay tilmaamayaan in uu u rarnaa xarunta ciidamada Soomaaliya lagu tababaro ee Turkiga ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee Turkisom, isla markaana ay qayb ka lahaayeen ganacsato Soomaaliya hubka saarnaa markabkaas. Waxaana in muddo jiray isjiid u dhaxeeyay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka Puntland oo ku aadanaa lahaanshaha markabka iyo sifada sharciga ah ee uu ku socdaalayay.